shirki golaha wada tashiga qaranka ee madaxda dowlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaare Roble kana qayb galeen midowga musharaxiinta xubno ka socda beesha caalamka iyo maanta lagu soo gabangabeeyay magaalada Muqdisho iyadoona warmurtiyeed ka kooban 18 qodob laga soo saaray golaha wada tashiga qaranka oo shir ku yeesheen 3 ilaa 9 Janaayo 2022 magaalada Muqdisho shirka ujeedkiisu waxa ah in lagu dhameystiro qodobada iyo sidoo kale habraacyadii lagu gaaray shirkii 24 Agoosto ee 2021 waxaana shir gudoominaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble iyadoona ay ka soo qayb galeen madaxda dowlad goboleedyada Puntland Siciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor iyo madaxweynaha Hiirshabelle Cali Guudlaawe iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish ahna duqa Muqdisho golaha wada tashiga qaranka waxay kulamo wada tashiyaha ee warmurtiyeedka ka hor ay la qaateen xubno matalaya midowga musharaxiinta bulshada rayidka oo isugu jiray rag iyo haween iyo sidoo kale beesha caalamka xubno ka socday shirka golaha wada tashiga qaranka waxa looga hadlay hagaajinta hufnaanta doorashada dhameystirka doorashada golaha shacabka waqtiga cayiman ee doorashada golaha shacabka lagu soo gabagabeynayo xaqiijinta amniga doorashada warbixinta xaaladda guud ee arrimaha siyaasadda amniga iyo abaaraha xilligan dalka ka jiro si waafaqsan heshiiska doorashooyinka ee 17 Diseembar 2022 iyo sidoo kale heshiiskii 27 May 2021 habraacyada doorashada ee 1 Oktoobar 2020 iyo sidoo kale 24 Agoosto 2021 golaha wada tashiga qaranka iyagoo oo tixgelinayo talooyinka iyo sidoo kale cabashooyinka soo gaaray waxay gudoomiyeen qodobada soo socda oo ka koobnaa 18 qodob qodobka ugu horeeya ayaa lagu sheegay in ka hor inta aan la qaban doorashada kursi kasta ee golaha shacabka in la cadeeyo lana diiwaan geliyo lana shaaciyo magacyada xubnaha guddiga ee soo xulaya ergada ee ka kooban duubabka dhaqanka caaqilka rasmiga ah iyo bulshada rayidka ee beelaha ama jufooyinka kursigaasi wadaaga laba in guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo heer federaal waa inay la wadaagaan guddiga khilaafaadka ee heer dowlad goboleed iyo sidoo kale kuwa dowladda ee ku sugan doorashada magacyada xubnaha guddiga soo xulaya ergada saddex gudiyada hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo ka kooban dowladda federaalka kuwa dowlad goboleedyada waa in madax bannaan yihiin hirgelinta doorashooyinka sida waafaqsan heshiiskii 17 Diseembar 2020 1 Oktoobar 2020 27 2021 Agoosto 2021 iyo heshiiska warmurtiyeedka 9 Janaayo 2022 waa in guddiga hirgelinta doorashooyinka ee dowladda afar waa in gudiyada hirgelinta ee doorashooyinka ee dowladda xubnaha ka ah ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo heer federaal waa inay xaqiijiyaan ergada wax dooranaysa inay yihiin kuwa iska leh kursiga ee soo xileen odayaasha dhaqanka shan guddiga maamulaya doorashooyinka heer dowlad iyo xubnaha ka ah dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo guddiga khilaafaadka waa inay si buuxda u hubiyaan musharaxiinta u tartamaya kursiga baarlamaanka iyo sidoo kale gudiyada soo xilaya ergooyinka soo xulista ergada waa inay si buuxda ugu madax bannaan yihiin duubabka dhaqanka caaqilka bulshada rayidka iyo beesha jufada iska leh kursigaasi lagulama faragelin karo lambarka 7 waxay ku sheegeen ka hor inta aan doorashada kursiga la gelin cabashada xilliga ka taagan waa in guddiga soo xulaya doorashooyinka ergooyinka doorashada waa inay si habboon oo ku filan waqtigooda shuruudaha habraacyooyinka doorashada u gudbiyaan 8 waa in ergada laga hor istaagi karin la kulanka musharaxa kursigaasi u tartamaya 9 waa in doorashada kursi kasta oo goobjoog ka yihiin guddiga soo xulaya ergada doorashada galaysa warbaahinta iyo goobjoogayaal kale oo madax bannaan si ay marqaati uga noqdaan hufnaanta iyo daafurnaanta doorasho kasta ee kursi kasta ee la qabanayo 10 waxa uu golaha wada tashiga qaranka ku adkeynaya dhammaanba gudiyada maamulada doorashooyinka iyo guddiga xalinta khilaafaadka inay si buuxda oo dhammaan heshiisyada iyo sidoo kale habraacyada hagaya doorashada cid kasta isku dayda in ay baalmarto qodobadaasi sharciga ayaa lala tiigsan doonaa waa inay ku dhaqmaan 11 si loo ilaaliyo wada shaqaynta gudiyada doorashooyinka ee golaha wada tashiga qaranka waxa hirgelinaya dhammaanba gudiyada doorashooyinka heerkooda kala duwan inay ilaaliyaan nidaamka kala dambeynta kuna dhaqmaan si waafaqsan heshiisyada iyo habraacyada doorashada u degsan 12 golaha wada tashiga qaranka waxay ku adkeynayaan gudiyada maamulada doorashooyinka inay ilaaliyaan doorashada iyo sidoo kale qoondada haweenka doorashada golaha shacabka ee deegaan doorashooyinka 13 musharax kasta ee buuxiya shuruudda habraacyada doorashooyinka lagama hor istaagi karo inuu u tartamo kursiga beeshiisa waxaana ka reeban in musharax gaar doorashada loo xiro 14 waa in musharaxiinta dhammi ay fursad siman u helaan la kulanka iyo sidoo kale ka dhex ololaynta ergada kursigaasi
15 ergada dooranaysa xubnaha golaha shacabka xildhibaanada waxa laga dhaafay bixinta qarashka iyo khidmada waraaqda dambi la'aanta iyo wixii la mid ah iyo qarasho hore looga qaadi jiray 16 ciidamada waa inay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha siyaasadda kuna ekaadaan waajibaadkooda ilaalinta amniga dalka iyo dadka waa inay u hoggaansamaan dhammaan shuruudaha xeerarka dalka 17 amisom waa inay xoojisaa amniga madaxtooyada oo haatan khilaafka farmaajo iyo sidoo kale Rooble uu ka dhex taagan yahay ciidamo kala taabasan ay ku wada sugan yihiin 18 doorashada golaha shacabka ee hadda socoto waxa lagu soo gabangabeynayaa muddada u dhaxayso 15 bisha January aynu ku guda jirno oo la bilaabayo ilaa 25 bisha dambe ee Febraayo 18 qodob ayaa lagu soo gabangabeeyay warmurtiyeedkii shirki maalmihii dambe u socda golaha wadatashiga qaranka ee arrimaha doorashooyinka uga doodayeen shirarkan waxa ka qayb galay xubno ka socda beesha caalamka ururada bulshada rayidka iyo sidoo kale madowga musharaxiinta ugu dambeyntiba gabagabada shirka maanta ka qayb galay horena uga soo qayb galay waxa meesha laga saaray qodobka amniga oo sidoo kale caqabad weyn ku ah maalmihii dambeba shirka oo dhinacyada siyaasad ee dhinacyada golaha wadatashiga qaranka isku fahmi waayeen kaas ayaana meesha looga tagay in aan la faragelin si xaaladda hore lagu sii wada ee dalka doorashadana loo amba qaado maahan waqtigu ugu horeeyay oo doorasho waqti cayiban loo qabto lamana oga sida u dhaqan gali doono warmurtiyeedka ka soo baxay ee golaha wadatashiga qaranka oo markii ugu horeysay aan ahayn muddo badan ayaa isha lagu wada hayay warmurtiyeedka maanta ay soo saareen golaha wadatashiga qaranka ee arrimaha doorashooyinka